hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigtay xubnihii ugu badnaa oo doonaya inay ku biiraan kooxda Al-Shabaab. Sidee bay ku suurta gasheen xubnahan gacanta lagu dhigo? Xaggee ka baxeen? Xaggeese ku socdeen? Waxaan rabaa inaan kula wadaago warbixin xasaasi ah oo ku saabsan raggan gacanta lagu dhigay iyo inta ay ka koobnaayeen intaba. Soo dhawaada saaxiibayaal, idinkuna muuqaalkan leeg saaro oo gaarsiiya dhammaan dadka Soomaaliyeed oo si sheer gareeya. Nisa mar kale ayay qabatay shaqo aan caadi ahayn oo dadka Soomaaliyeed aan indhaha ka qabsan karin. hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee Nisa ayaa gacanta ku dhigtay in ka badan 28 xubnood oo doonaya inay ku biiraan kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo ka ambabaxay gobolka Shabeellada Hoose isla markaana ku sii jeeday deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab. dadkan gacanta lagu dhigay ayaa doonayay inay ku biiraan kooxda kadibna la askareeyo si ay ugu dagaalamaan, waxaana ay ka soo ambabaxeen meel duleedka ka ah degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose iyaga oo ku sii jeeday Shabeellada Dhexe. waxa ay saarnaayeen gaari nooca loo yaqaano caasi ama homi, waxaana ay ka koobnaayeen darawalkii gaariga, laba xubnood oo caawiye u ahaa darawalka, iyo sidoo kale 25 kale oo rag ah oo isugu jira caruur iyo rag dhexaad ah, kuwaas oo dhammaantood doonaya inay ku biiraan kooxda Al-Shabaab si ay uga barbar dagaalamaan. laakiin hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo xoga iyo macluumaad dheeri ah ka heshay ila dadka deegaanka ah ayaa lagu suurtageliyay in lagu soo dhigo gacanta iyaga iyo caasigii ay saarnaayeen ka hor inta aanay u tilaabin gobolka Shabeellada Dhexe. Nisa oo ku howlgelaysa macluumaadka ay ka heshay dadka deegaanka ayaa la sheegay inay u daadatay goob ay markaasi ku sugnaayeen oo ay doonayeen mar kale inay ka sii dhaqaaqaan si dhuumaalaysi ah weliba, maadaama aanu gaarigu si toos ah wadooyinka uusan u mari karin oo ay jirtay baqdin ah in ciidamada dawladdu ay gacanta ku dhigaan lagana shakiyo, maadaama ay wax gaariga saaran dhammaantood ay ahaayeen rag isla markaana aanay wadanin waxyaabo ama dukumentiyo cadeynayo halka ay u socdaan iyo halka ay ka yimaadeen, sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen caruur yar yar oo la doonayay in kooxda loo askareeyo. iyaga oo meel howda oo ku taala xadka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose ku sugan ayay Nisa u daadatay, dhammaantoodna gacanta ayaa lagu soo dhigay. haddana waxay ku jiraan gacanta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee Nisa. hay-addu waxay sheegtay in markii baaritaano dheeraad ah lagu sameeyay raggan inay qirteen inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Al-Shabaab, halka caawiyaasha gaariguna ay qireen iyaguna inay doonayeen inay raggan u geeyaan xubno Al-Shabaab oo saraakiila oo ku sugan deegaano Shabeellada Dhexe ku yaalo oo la doonayay in halkaas looga furo tababar si ay uga barbar dagaalamaan kooxda Al-Shabaab oo iyadu doonayso caruur Soomaaliyeed oo ay geliso dagaalka ay ku jirto ama dawladda Soomaaliya ay kula jirto. nabad sugidda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay mar kastaba ka go'an tahay in la ugaarsado ama la bartilmaameedsado meel kasta oo ay joogaan xubno Al-Shabaab ku biiraya ama doonaya inay qalqal geliyaan amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed. Nisa waxay sheegtay in sii wadi doonto shaqada lagu bartilmaameedsanayo xubnaha Al-Shabaab haddii ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ama meel dibadda ka ah Muqdisho oo ku yaalo gobolada dalka. talaabadan ayaa u muuqatay in Nisa ay qabatay shaqo aan caadi ahayn isla markaana hadda ay bilowday ka hortagga xubnaha la doonayo in loo askareeyo kooxda Al-Shabaab, taas oo ah dagaal mar kale dabarjab ku noqon karo kooxda Al-Shabaab. Nisa ayaa horey ula dagaalantay dhalinyarada Al-Shabaab ee qalqalgelinta amni ka geysta Muqdisho, waxa kaloo lala dagaalamay ganacsatada siisa lacagta Al-Shabaab kuwa u ururiyo bangiyada isticmaalayeen iyo taleefanadii. dhammaantood Nisa ayaa xirtay oo albaabada isugu dhifatay. mar kale Nisa hadda waxay bilowday inay la dagaalanto kuwa doonaya inay askareeyaan caruurta Soomaaliyeed isla markaana shabaabku ay ka dhigtaan xaabo ay dabka saartaan si ay maalmo kale u sii cumriyaan. haddaba sidee baad u aragtaa talaabada ay qaaday hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee Nisa ee lagu soo xirxiray xubnaha Al-Shabaab doonaya inay ku biiraan? aragtidiina commentiga ka dhiibta, muuqaalkan leeg saaro oo si sheer gareeya gaarsiiya dhammaan dadka Soomaaliyeed. waa mahadsantihiin saaxiibayaal.